haddii aad shaqo-doon tahay labiskee ayaad xidhanaysaa maanta haddii aad shaqo-doon tahay labiskan ma xidhan lahayd haddii jawaabtaadu tahay haa iyo haddii jawaabtaadu tahay maya labadaba muuqaalkan dhexdiisa ayaan ku sheegi doonaa waa Motinho oo ka hadla lifestyle-ka soo dhawaada labiskan waa labiska ugu macquulsan ee qofka shaqo-doonka ah ama shaqo doonaya uu xidhan karayo labiskan ama tay ku darso oo suu dhammaystiran ka dhigo ama kabaha iyo isku ekaysi surwaalka ama labadan isku ekaysi ama saddexdan isku ekaysi labisyadan ama classiga ama gentleman dressing-ka oo corporate outfit-ka waa labisyo ugu macquulsan ee aad ku labisan karaysid haddii maanta aad shaqo doonanayso oo aad shaqo tag tahay adigu isma xukuntid waa lagu xukumaa waayo shaqo ayaad rabtaa inaad noloshaada beddesho ayaad doonaysaa waa maalintii kuugu muhiimsanayd ee maalmahaaga waxaa laga yaabaa in xitaa haddii aad boysaska kale aad ku dhacdo oo dressing-kaaga uu wanaagsan yahay oo akhlaaqaaduna ay wanaagsan tahay waxaa laga yaabaa inaad fursaddaas aad taana soo hesho oo shaqada lagugu siin karayo meelo kala duwan ayaa jira oo dressing code leh so meel markii hore dressing code lahayd oo gentleman dressing ama labis dhammaystiran oo classic ama casual loogu talagalay haddii surwaal ballaaran iyo garan aad u xidhato xitaa adoon shaqadaba helinba interviewga koowaad ku dhacaysa sababtuna waxa weeye labiskii shirkadda markii koowaad soo codsanaysayba maad buuxin so waa maalintii kuugu muhiimsanayd noloshaada so at least bal isku day in labisyada caynkan oo kale ah maalinkaad shaqo-doonka tahay ama interviewga aad galayso labis classiga inaad xidhan karayso waxaa laga yaabaa markaa inaad u ekaato qof mas-uula oo shaqo taga oo shaqaduna ka go'an tahay inuu helo bal adiguna la wadaag labisyada aad u malaynayso in qofka shaqo-doonka ah uu xidho ay muhiim ka tahay soo kale haddii aad interviewer ahayd hore labisyada aad dadka ku reebtay intay soo xidheen maxaa ka mid ahaa